shirkan jiraayid oo si wada jira ay ugu qabteen gudaha xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Galmudug madaxda kala ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf ayaa waxa ujeedkiisu ahaa sidii looga warbixin lahaa arrimaha ka jira deegaanada dawlad goboleedka Galmudug iyo halka uu marayo dhamaystirka maamulka Galmudug xareeda Cali xareeda gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Galmudug ayaa ugu horeyn bahda wardoonka la hadlay isagoona soo hadal qaaday hadal ka soo yeeray maantay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casri iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Galmudug runtii dibashiisiintaas maanta heerka la soo gaarsiiyay iyo maanta meesha ay taagan tahay cid walba Soomaali ama dadka u dhashay deegaanada Galmudug aad u soo dhaweeyeen waxaana nasiib darro ah maanta dadaalkaas dheer oo loo soo maray Galmudug oo intii ay maanta Galmudug dhibaatooyinka ku hareeraysan cid kasta ay og tahay oo mar allaale markii aan hawshayna la soo abjareen geedi socodkii ay hadda iyo dib inay haddana wixii ay nala dhiseen inay burburiyaan ama maaragtay ay yiraahdaan waa burburinaynaa inay ka shaqeynayaan nimankaana kullee waa niman macruuf oo deegaanka laga garanayo madaxa xukuumadda dawlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo isna dhinaciisa hadlay ayaa sheegay inuu aysan jirin heshiis burburay oo ku saabsan mideynta labada maamul haddii gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenku wax tirsanayaan waa ka tiraynaa waa inay yimaadaan caasimadda Galmudug inay yimaadaan ayadaa lagu dhameystiraa heshiiska ayadaa lagu dabaaldegayaa markii la dhameystiro ayadaa martiqaadkeedu ka dhici doonaa maamulada ku martiqaadi doonaa iyo madaxweynaha Soomaaliya ee hadda hooskii aan harsanaynay waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim walaalaha hadday wax yar tabanayaan waa ka tiraynaa insha Allah alkariim waxaana mar walba anaku u tanaasulaynaa shacabkeena dantiisa baan anaku u haagaynaa ugu dambeyntii ayaa kulanka waxaa soo xiray madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf waxaana hadalkiisii kamid ahaa warka ku laalaaban maayo muqdisho waxa ah rag odayaasha ahaa oo runtii halkan nala joogay wax walba nala sameeyay maanta hadayna daba mareen oo cadaada ay tageen oo waxaan maqlay ay ku hadleen waa nasiib darro toban bari baana hadda xamar la soo joognay dib noo dhigeen la hadalay wax walba u sheegnay hadda nin meel u cadahay meel ka madow Soomaalidu tiraahdo waxaan rajaynayaa inaan u sheego walaalahay Cali Gacal maxaa xaashiyaan niman idin reer dooriyo sanad maxaa la oran jiray niman idin furi dooriyo sanadin rabi Maxamed Cabdiweli Tooxow TV-ga caalamiga ah Universal Dhuusamareeb